السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانك مالمها waxaan idin soo gudbeynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa wax dhaxmartay wiil iyo aabihii. wiilkani ayaa waxa lagu magacaabi jiray Haadi wuxuu ahaa wiil aad u yar, wuxuuna ku soo dhax barbaaray reer aad isaga dhaqan. hase ahaatee reerkani ma aysan ahayn kuwa mar waliba ka fikira tarbiyada ubadkooda iyo sidii ay u bari lahaayeen dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan. hase ahaatee Haadi wuxuu door biday inuu dariskiisii ka qaato tarbiyada isla markaana uu noqdo wiil wanaagsan. maalmaha ka mid ah Haadi aabihii wuxuu ka soo laabtay shaqada, wuxuuna yimid guriga isagoo ay ka muuqato daal badan isla markaana dareemay gaajo. guriga ayuu soo galay, markaasuu xaaskiisii wuxuu ku yiri gaajo daran ayaa hayso ee ii keen raashin. xaaskii ayaa raashinkii u keentay, hase ahaatee waxaa ka muuqatay murugo. markii uu arkay wuxuu ku yiri maxaa kugu dhacay? wuxuu ku tiri wiilkeeni Haadi ahaa inuu raashin cuno wuu diiday maanta, wuxuuna ku jiraa qolkiisa maanta dhan wuu ooynayay. aabihii ayaa la yaabay hadalka xaaskiisa, markaasuu carray wuxuu u tagay wiilkiisii qolka ugu galay. markaasuu wuxuu weydiiyey sababta keentay inuu raashinka diido isla markaana uu la ooynayo. aabihii wuxuu bilaabay inuu la hadlay wiilkiisa, uu leeyahay wiilkeygiiyow maxaa kugu dhacay? maxaad la ooynaysaa? maxay tahay dhibaatada ku haysato? wiilkii ooyintii ma uusan joojin, balse uu iska sii watay. aabihii ayaa mar labaad ku soo celiyo ku yiri wiilkeyga ma dhibaataa ku haysato? ma saaxiibada ay dhib ku geystay? iskuulka miyaa lagaa soo dhibaateeyey? macallin maa dhibaato ku geystay? wiilkii wuxuu ku yiri aabbo maya, waxaasoo dhan ma jiraan. markaas aabihii ku yiri bal ii sheeg sababta keentay inaad halkan ooyin la fadhiso. wiilkii ayaa ku yiri aabihii aabbo maanta waxaa dhintay ninkii dariskeenna ahaa ee lagu magacaabi jiray Raaqib. Raaqib ayaa dhintay maanta. aabihii ayaa fiiriyay wiilkiisii isagoo la yaaban oo ku yiri waxaad la ooynaysaa aad u murugaysan tahay odaygii cajuuska ah ee dariskeenna. wuxuu yiri odayga waayeelka ah miyaad u ooynaysaa? odaygaasi adduunyadiisii wuu dhammaystay, uuna ka tegay adduunyada. mana mudno inaa intaan u oyso aabbo, mana aaminsani in xitaa wiilashiisii ee maanta u oynaya maadaama uu ahaa oday waayeela. waxaan u malaynayaa inaad sidaa u oysay aan aniguna iigu oy doonin. markaasuu aabihii ku yiri wiilkeyga inakeen aan raashin cunne, iska daa ooyinta, iskana iloow arrinkaas. wiilkii ayaa aabihiis fiiriyay isagoo murugo ka muuqato. markaasuu wuxuu bilaabay inuu aabihii ku leeyahay aabbo ooyinta ma joojinayo maanta. maxay Raaqib wuxuu ahaa nin aad aan u jeclahay, wuxuu ahaa nin ii buuxiyay booskii waalidkii. maxay wuxuu ahaa mar waliba inuu masaajidka ii wadayo, sidoo kaleeto wuxuu igu saaciday sidii aan ku xifdin lahaa qur-aanka oo dhan waa xifdiyey, isaga ayaana sabab u ahaa. sidoo kaleeto wuxuu ahaa Camar Raaqib inuu mar waliba ibarayo waxyaabaha ku saabsan diinteyda isla markaana igu toosinayo wadada wanaagsan. aad ayuu ii jeclaa, uuna xanaaneyn jiray, wuxuuna iga dhigan jiray wiilkiisoo kaleeto. sidoo kaleeto wuu ii nasiixayn jiray, waxyaabaha runta ah ayuu ii sheegi jiray, wuxuuna iga warrami jiray arrimo badan oo ku saabsan mustaqbalkayga. maxaan ugu ooy waaya maanta? maxaa yeele wuxuu ahaa Camar Raaqib qayb ka mid ah nolosheeda. markaasuu ku yiri aabbo adigu aniga waxba igama taqaanid, mana i ogeed waxaan ahay. maxaa yeele mar waliba ima daryeeshid, mana i ogeed xaaladeyda, masaajidna iima wadid, salaadeedina ma ogid. sidoo kale dadka aan saaxiibka la ahayna lama socotid. weligeena ma arkin adigoo ii naseexeynayo. xitaa waxaaba laga yaabaaba inaan adigoo laftaadaba aadan salaad dukanin, weligaana masaajid aadan aadin. mar walibana waxaad ku mashquulsan tahay ama hamiga uu yahay keliya sidii aad lacag ku soo aruureed keliya. maxaa yeele allihii ku abuuray mar waliba ihtimaam ma siisid, diintaadana sidoo kaleto ihtimaam ma siisid. marka maxaan kugu ooyay haddii aad dhimato? haddii aad dhimato maxaad ii qabatay? maxaan igu sheegi kartaa maanta? sida uu Camar Raaqib wax ii baray miyaad wax ii bartay? aabihii aad ayuu u yaabay. hadalladii inankiisa ku dhahayay qalbigiisa ayay taabteen. markaasuu wuxuu bilaabay inuu oynayo oona leeyahay wiilkeyga waa sax, anigu ma ihi qof wanaagsan,
sida raaqib oo kaleeto waana dareemi karaa inaan gabood falay oo aan garabkaaga istaagin taasoo dhan waxaa igu wacan adduunyo raadis ee inaan ku mashquulo nolosha balse waxaa dhab ah wiilkayga inay waajib tahay inaan kaa warqabo xaaladadan aan la socdo sidaa darteed waxaan qiranayaa inaan gafay oo qalad aan kaa galay xaqaagina aan gudin balse waxaan kuu ballan qaadayaa laga bilaabo maanta inaan garabkaaga istaagi doono wax walibana aan dib u soo hagaajin doono isla markaana aan noqon doono qof kugula saaxiibo noloshaada si mustaqbalkaaga wax iskaga bedelo wiilkii ooyinta ay joojiyey wuxuuna dareemay farxad markaasuu wuxuu yidhi aabbo waxaan dareemayaa maanta inaad booskii camo raaqib ii buuxi doonto mustaqbalkiina aad qayb ka qaadan doonto qisadan halkan ayay ku eg tahay qisadani waxyaabo badan ayaan ka faa'iideynaa sidaynu ognahay in badan oo waalidiinta ka mid ah waxay ku fikiraan sidii lacag u soo shaqayn lahaayeen balse kama fikiraan sidii ubadkooda u daryeeli lahaayeen ama u warqabi lahayn xaaladooda waxaa dhici karto aabbaha inuu saaka guriga ka kallaho oo habeenkii u soo laabto uusan ka warqabin ubadkiisa iyo carruurtiisa xaaladda ay ku sugan yihiin haddii ay noqon lahayd dhanka aqoontooda haddii ay noqon lahayd dhanka akhlaaqdooda iyo haddii ay noqon lahaydba dhanka mustaqbalkooda qisadani waxayna baraysaa inaan sidaan uga fikirayno inaan lacag soo shaqayno inaan sidoo kaleeta ka fikirno ubadkeena iyo xaaladda ay ku sugnaan doono mustaqbalkooda maxaa yeele ma aan keliya inaad ka fikirto sidii aad ku korin lahayd jirkooda balse sidoo kale waxaa habboon inaad ka fikirto sidii aad akhlaaqdooda ku hagaajin lahayd isla markaana aad uga qayb qaadan lahayd inay wanaagsanaadaan maxaa yeele haddii aad ubad wanaagsan ka tagto waxaa hubaal ah mustaqbalka inuu ku anfici doono xitaa haddii aad adduunyada ka tagto ama aad dhimato inuu noqon doono ubad saalixa oo kuu soo duceeyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis ayuu wuxuu ku leeyahay qofka haddii uu dhinto camalkiisa waa u go'aa ilaa 3 shay maahane rasuulku wuxuu tilmaamay qofka ka tagto sadaqad jaariye ah inay u socon doonto sadaqadiisa sidoo kaleeto qofkii qof wax baro wax wanaagsan baro inuu ajirkeeda heli doono sidoo kaleeto wuxuu tilmaamay rasuulka haddii qofka uu ka tagto ubad wanaagsanna inuu anfici doono markuu dhinto ka bacdi sidaa darteed waxaa wanaagsan inaan mar waliba ka tagano ubad wanaagsan akhlaaqdoodan ay wanaagsan tahay isla markaana noqon doono kuwo mustaqbalka haddii adduunyo ka tago naga fikiro waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh gamaalkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono mahadsanid